Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkeena. Soo dhowaada, waa walaalkiin saaxiibkiin Cabdimijiid Aadan Nuur. Kuna soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaan ka hadlaynaa the key squares ama maxaa la yiraahdaa key squares. Ma rabo muuqaalka inuu dheeraado, sidaas awgeed waxaan jeclahay muuqaalka inuu soo gaabto oo si ay dadka daawanaya aysan ugu caajisin ama aysan u nicin. Waxaan mar walba jeclahay muuqaalka inuu aad iyo aad iyo aad sida ugu macquulsan u soo gaabto. Aan u gudubnay marka maanta mawduuceena maanta wuxuu ku saabsanaay key squares. Marka koobaad waxaan fahmaynaa horta waxa la yiraahdo key squares, kabacdi faa'iidada ay leedahay key squares ayaan ka hadli doonaa. Haddaba marka key squares haddaan usoo noqono, key squares waxaa la yiraahdaa askariga markuu sidan u taagan yahay saddexdan meel ayaa waxaa la yiraahdaa key squares. Saddexdaas meel oo ah C4, D4 and E4. Mar walbana key squareska waxay ku xiran tahay askariga. Hadda saddexdan meel waxaa inoo dhexayso hal square soomaan, hal square bis ayaa inoo dhexayso. Mar walbo askarigeena dhaqaaqana waxay u dhexayn doono hal square. Saddexdan meel hadda waxaa la yiraahdaa waa key squares. Askariga markuu sidan u taagan yahay saddexdan meel waxaa la dhihi doonaa key squares. Haddii aan askarigeena dhaqaajino oo aan geyno D3, automatically key squareskeena wuu isbedeli doonaa oo waxaa noqon doono C5, D5 and E5. Saddexdan ayaa noqon doono. Haddaba marka haddii aan kusii darno askarigeena oo aan geyno D4, automatically haddana waxaa isbedeli doono key squareska oo waxaa noqon doono saddexdan oo ah C6 and D6 iyo E6. Saddexdaas ayaa waxay noqon doonaan key squareska. Hadda askarigeena wuxuu taagan yahay dhexbartanka. Haddii uu dhexbartanka dhaafo oo uu gudbo, macnaheedu waxay tahay key squareskan way badan doonaan. Haddii hadda aan geyno D5, key squareskeena awalkar waxay ahaayeen saddexdan soomaan oo saddexdan ayaa noqon lahayd. Saddexdan ayaa noqon lahayd, laakiin hadda way kordhayaan oo waxay noqonayaan 6. Mar allaala markay dhexda uu gudbo, key squareskana way sii badan doonaan. Haddii aan tagno D6, squaredeena haddana sidoo kale key squareskeena waxay noqon doonaan 6dan. Waxaan filayaa in key squares aad fahanteen. Marka hadda waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay leedahay. Horta automatically hadda askarigeena markuu saan u taagan yahay key squareska waxaa la dhihi doonaa saddexdan ayaa la dhihi doonaa oo ah C4, D4 and E4. Faa'iidada ay leedahay marka key squareska waxay tahay haddii hadda caddaan ayaa wadanaa soomaan. Haddii boqorkeena cad saddexdan mid ka mid ah, hal mid oo ka mid ah hadduu ku istaago, ciyaarta si cad waxaa u guuleysan doona caddaanka. Laakiin haddii boqorka madow uu saddexdan mid ka mid ah inaad ku soo istaagto uu kuu diido, ciyaarta waxaad qaadan doontaa baraajo. Aan fiirino marka example-ka. Positionkan haddii aan fiirino, positionkan waxaan leenahay haddii uu caddaanka geediga leeyahay, ciyaartu waa baraajo. Laakiin haddii uu madowga geediga leeyahay, ciyaartu waa badis. Aan ku hormarna marka koowaad inuu geediga leeyahay madowga. Geediga haddii uu leeyahay madowga, marka koowaad waxaan fiirinaynaa waa intee key squareskeena. Key squareskeena waa saddexdan. Haddaba marka hadda geediga waxaa lahay madowga. Mid xasuusnow haddii saddexdan mid ka mid ah uu caddaanku ku soo istaago, ciyaartu waa badis. Sababtoo ah ma jiri doonto waddo aad ku celisid askarigan, sababtoo ah toos ayuu u xaran doonaa. Laakiin haddii aad ku guuleysatid saddexdan mid ka mid ah inuusan soo istaagin caddaanka, ciyaartu waa baraajo oo waxaad ku guuleysatay inaad baraajo xajisatid. Haddaba marka hadda waxaa geediga leh madowga. Meelaha ugu macquulsan oo madowga tegi karo waa labadan meel oo ah C5 iyo E5. Haddaba markaan dhahno hadda waxaa madowga wuxuu tagay C5. Key squareskeennii aawi saddexdan ayay ahayd. Laakiin hadda waxaa ka maqan uu madowga xadidaynin E4. Automatically caddaanka wuxuu tagi doonaa E4. Sababtoo ah wuxuu ku guuleystay mid ka mid ah key squareskii. Wuxuu ku guuleystay mid ka mid ah key squareskii. Ciyaartana waa badis oo waxaa badiyey caddaanka. Haddii marka aan fiirino positionkan, aan dhahno waxaa geediga leh caddaanka. Haddii marka caddaanka geediga leeyahay, saddexdan meel ka mid ah marnaba ma imaan doono oo waxaa kontrooli doona madowga.
sababta haddiidina laga guulaystay waxay ahayd geediga waxaa lahayn madowga wuxuu ka tanaasulay saddexdan mid ka mid ah oo wuxuu ogolaaday qasabna ku ahayd inuu caddaanka u ogolaado saddexdan mid ka mid a inuu kusoo istaago. ciyaartana waxay ku dhammaan doontaa baraajo. haddaba marka positionkan haddii aan fiirino key squareskeena aan marka koowaad fiirino key squareskeena waa saddexdan. madowga wuxuu isku dayi doonaa inuu kontaroolo saddexdan, caddaankana wuxuu u ordi doonaa inuu ku istaago saddexdan mid ka mid ah. haddii uu ku guul daraysto inuu ku istaago saddexdan mid ka mid ah, caddaanka wuxuu qaadan doonaa baraajo. laakiin madowga haddii uu ku guul daraysto inuu ka xadido saddexdan mid ka mid ah, caddaanka wuxuu qaadan doonaa badis. micnaha idiin soo gaabiyo, madowga mar walba wuxuu isku dayi doonaa saddexdan inuu u diido caddaanka, caddaankana wuxuu isku dayi doonaa inuu mar walbaba ku guuleysto saddexdan mid ka mid a inuu ku istaago. sababtoo ah saddexdan waa kii squareski, haddii uu ku istaagana ciyaartu waa badis. aan fiirino marka waddooyinka macquulka ah. waddadan marka macquul ma ahan oo caddaanka saddexdii mid ka mid ah inuu tago macquul uma ahan. ciyaartuna waxaa weeye baraajo, laakiin waxaa jirto waddo kale uu ku guuleysan karo caddaanka inuu tago kii squareska. aan dib u celino oo aan fiirino marka. okay, halkan markaan soo gaarno geediga marka waxaa lehay caddaanka, geediga waxaa lehay caddaanka oo wuxuu ku guuleysan doonaa a6 na waxaa noo ahaa kii squareskeeni. a6 haddii uu marka caddaanka ku istaago, waddo ma jirto uu ku celiyo inuu askarigan noqdo queen, inuu askarigan noqdo queen. haddaba positionka markaan soo gaarno, caddaanka ayaa geediga leh, caddaankana wuxuu automatically tegi doonaa a6 oo ah mid ka mid ah kii squareskeeni. kii squareskeeni haddii uu marka caddaanka ku istaagana ciyaartu waa badis, oo madowga ma awoodi doono inuu askarigan celiyo oo uu ka celiyo inuu noqdo boqorad. ciyaartana way dhammaatay oo waxaa guuleystay caddaanka.